si dareen leh u dhageyso wixii faa'iido ahna kala bax naftaadana ugu yeedh khayrka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu booqday nin asxaabta ka mid ahaa oo aad u xanuunsanayay waxa uu weydiiyay ilaahay wax ma weydiisan jirtay wiilkii ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan odhan jiray ilaahayow dambiyada aan galay ciqaabteeda maalintii yawmal qiyaama la iga jari lahaa hadda ii soo dedejiyo adduunyada igaga jar wuxuu yidhi subxaanallah ma tidhi ilaahayow adduunyada wax wanaagsan inagu sii aakhirana wax wanaagsan inagana badbaadi cadaabtaada nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka waqti badan ku dhex qaatay uu ku raagay waxa uu yidhi ilaahayow jeelka aadayadigu dhex raajisay ilaahay ayaa u jawaabay oo yidhi adiga ayaa dalbaday jeel waanana ku siinay haddii aad dalban lahayd dembi dhaaf waana kuu dembi dhaafi lahayn qur-aanka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xusay hadal uu nebi yuusuf yidhi qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh ilaahayow jeelka ayaa iiga roon waxan ay iigu yeedhayaan ilaahayna dalabkiisii ayuu u oofiyey maadaamuu ka dalbaday jeel dib u xasuuso noloshaada inta jeerad ku dhawaaqday weedha u eeg hadalladaas imaam alwardi ayaa waxa uu yidhi alqadaru muwakilun bilmantiq waxa aad ku hadlaysaan ka warhaya carabkiinana ka ilaaliya hadalla noocaasi ah oo habarina waxa aad ku hadlaysaan naftiinna ayay hadhow dhib u keeni kartaa waxa aad ku hadlaysaan amba aad ilaahay ka dalbanaysaan ha noqdo waxa ugu wanaagsan ee aakhiriya adduunba ku anfacaya sheeko uu warinayo sheekh lagu magacaabo cali dandaawi ayaa waxa uu leeyahay sheekhu shaam ayaa waxaan ka ahaa qaadi amba garsoore maalin maalmaha ka mid ah ay ahayd waqti ay cadceedu sii dhacday ayaa waxa aan wada soconnay niman saaxiibaday ah annaga oo dariiqa soconna ayaa waxa aan dareemay daal iyo culays zaa'id ah waxa aan damcay inaan adkaysto oon la sii socdo saaxiibaday balse waan awoodi waayey kadib ayaa waxaan ku yidhi iska sii socda anigu meeshan ayaan ku yaro leexanaya oo hawada ayaan qaadanayaa markii aan ka leexday ayaa waxa aan maqlay gurxan iyo ooyin dhagahayga ku soo dhacaysa markii aan u sii dhowaaday ayaa waxaan arkay gabadh foorarta oo oohinaysa isla markaana ilaahay baryaysa waan ku dhowaaday oo waxaan idhi walaalay maxaa kugu dhacay oo sidankaaga oohinaya waxa ay tidhi saygaygu amba ninkaygu waa nin xun oo daalim ah gurigii ayuu iga soo eriyey carruurtiina wuu iga reebtay xataa iima ogola inaan soo eego aniguna ma haysto hoy iyo cid aan u tago qaadigii ayaa waxa uu ku yidhi oo dacwadaada maxaad uga gudbin weyday qaadiga magaalada aad ayay u ooyday kadib waxa ay ku tirsiday gabadh anigoo kale qaadiga ugu tegi kartaa sheekha oo oohinaya ayaa dhammaystiray oo yidhi gabadhu ma oga inuu ilaahay qaadiga lugihiisa ugu keenay isaga oo ka hadlaya naftiisa ilaan waa qaadigii magaaladee ilaaha ayaa wakhtiga madow ee habeennimada ah qaadiga lugihiisa ku horgeeya gabadhaas isla markaana uu isaga laftiisu weydiinayo gabadha waxa ay u baahan tahay gabadhaasi sidaas u dhibaataysnayd ducadii ilaahay weydiisatay ilaahay wuu aqbalay qof walba oo dhibaato dareemaya oo u malaynaya inay adduunyada ka xidhantay gacanta kor u taago ilaahay weydiiso wax aad u baahan tahay oo hays odhan sidee xal loo gaari karaa oo kuwan umuurihii isku qasmay ka farxi qalbigaaga ogow markaad dhibaato u samirto kadib inuu jiro shay ku ilowsiin doona dhibaatada aad soo martay ilaahayow qof walba oo fariintaydaasi furay ee maqlay ilaahow barakee oo cirka iyo dhulka oga fur arsaaq uu ku farxo qof walba oo sii sheergareeya oo sii faafiyana ilaahow jannadaada xisaab la'aan ugu nimcee ilaahayow waxa uu haminayana u fududee isaga iyo dhammaan muslimiinta dunida ku dhibaataysan oo nagu soo biir waxay inoo tahay tartar iyo dhiirigelin